بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وعنا ونكسن مeel kasto aad joogtaan. barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan ku la fagurayno weeraradii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay geysteen dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo digniintii uu jeediyay wariye Daahir Calasow oo ay yareysteen madaxda hay'adaha amniga. waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadan doonaa habacsanaanta dhinaca amniga iyo ficiladii ay ku kaceen madaxda maamulka gobolka ku xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga weerarkii liida kadib. waa sayaaba ma aragtay gudoomiyihii gobolka Banaadir oo dharbaaxaya wiil yar oo shoogsan oo ku jiray maqaayadda Banaadir Beach la soo badbaadiyay. sidoo kalena ma aragtay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo gacmaha jeebka gashtay iyo taliyihii ciidanka nabad sugidda sirdoonka qaranka General Gafow oo iska qoslaya. waxbaynu ku maqasbeen naftiina kaliya baasada Soomaan aniga bujiga darta afurin horta midaan ku sheega anaga waa laga yaabaa laakiin kuwan caawd dagaalamay istaa hortimaado horay ka dilaayeen marka hadii laba dhimasho dooro ya akhi bemiya ma la iska tahliid General Gafow maxaa ku qasbay in dhalinyarada soo badbaadiyo oo yiraahdo kuwaas day arkaan waa in dilayaan laakiin anaga idin dilayno miyuu soo ogeyn inay mas'uuliyad ka saareed inay argagixin oo isa shoogin halka uu tusaale soo qaadanayo inay argagixisada ay arkaan ay dil lahaayeen. waa tahay daawadayaal aan guda galno barnaamijka la xiriira weeraradii argagixiso ururka al-shabaab ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha lagu caweeyay oo ku yaala xeebta Liido. haddaba weeraradaas inta aysan dhicin ka hor wariye Daahir Calasow oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee rugcadaaga ah oo ku sugan wadanka Holland ayaa ka digay in maalinta Khamiista oo ay ku beegnayd maalintii ururka al-shabaab weerarkaasi ay fuliyeen weerar ay ka fulin doonaan Muqdisho gaar ahaan beerta nabadda iyo Banaadir Beach oo wariyuhu uu bartiisa Facebook iyo website-ka uu maamulo ee waaga cusub ku soo qoray. haddaba aan weydiiyo Daahir Calasow sida xogahaasi uu ku helay. waayahay maxaan Bashiirow arrinta haddii aan ka hadlo waa arrin xasaasi ah waa arrin xiiso badan in xog la helaana ma aha wax sahlan laakiin waxaa la yaab leh in raggii amniga qaabilsanaa ay ku jiraan nolol qiyaaliya ama qaarkood ay u shaqeynayaan argagixisada taasoo ka dhigan baadida dad baa kula daydaalna ka badane in la helna aan doonayn daayin abadkeed. waxa weeye runtii way adag tahay inaan ka jawaabo oo idhaahdo xogta hebel iyo hebel aan ka helay laakiin sida aad arkaysay xogtaas waan helay xogo badanna waan hayaa hadda oo ka duwan anigu waxaan aaminsanahay inaysan argagixisada lahayn awood anigu waxaan aaminsanahay in xasuuqa argagixisada si sahal looga hortagi karo anigu waxaan aaminsanahay inay madaxda amniga ee dawladda Soomaaliya ee Muqdisho uu moodo inay u taliso ay og yihiin weerarada argagixisada iyo qorshooyinka ay wataan laakiin waxay ila tahay inaan dan laga lahayn. taa waxa ka dhigan inaan dhig jaraq loo siin cid kasta oo hayso xogo muhiim ah. taas waxa ka dhigan in dadkii amniga qaabilsanaa ay sugidda ammaanka ka jecel yihiin in dadka la baylihiyo oo laaluus laga qaato argagixisada. taas waxa ka dhigan in qaraxyada dilka dhacay laftoodu ay saraakiisha amniga ku lug leeyihiin laakiin xaqiiqsada ayaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliya waxa weeyay argagixisada al-shabaab waxay u xil saaran tahay dadka Soomaaliyeed inay nacaysiiso diinta islaamka qofka ay qarxiyaan qoorta ka gooyaan diintu sida argagixisada loo sameeyay ay tahay in diinta islaamka nacaysiyo qofka muslimka ah in dadka salaada la nacaysiyo maxaa yeelay qof islaam ah ama sheegan inuu jihaadayo masaajidka hortiisa doo fariisto ma sugayo qof salaad ka soo baxay kadibna ma dilayo marka mashruuci argagixisada wuxuu yahay in qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah la nacaysiyo inuu masaajidka taw ku cibaadeysto laakiin damajidina qandaraaska ay qabaan wuxuu yahay in dadka la nacaysiyo dawladnimada in la nacaysiyo qarannimada in la nacaysiyo calanka in qofka Soomaaliga markuu maqlo dawlad oo ku carro waa sababta calanka arkaysid ee shanta gees leh wuxuu tilmaamayaa shanta Soomaaliyeed ayuu tilmaamayaa oo Soomaali galbeed leh oo NFD leh oo mataqaanaale waqooyi leh oo koonfur leh oo Jabuuti leh marka in madaxweynihii dalka uu ku dhawaaqo
jijiga ama Soomaali galbeed waxa la Itoobiya waa dhul Itoobiya ka soo Itoobiyaan ay waxay ka macno tahay in calankii shanta gees lahayd ma taqaanaa qayb oo ka jaray oo qorshihii hore ee la rabay in calanka lagu bedelo ay qayb ka tahay marka qofka Soomaaliga ah ee 1940kii u dagaalamay gobonimo ee u dagaalamay inuu Soomaali galbeed xoreeyo ee intaasi oo kun oo awooyaasheen ay u dhinteen inay xoreeyaan dhulkaasi Soomaali galbeed haddii uu maqlo kan curyaanka ku jiro Ancelotti haddii uu maqlo Martini ku jiro haddii uu maqlo madaxweynuhu dhahay dhulkaas waa dhul Soomaali ma aha waa dhul Itoobiya macnaheedu waxay tahay qandaraaskii ayuu qabaa oo ah in dadka la nacbaysiyo Soomaalinimada dawladnimada calanka in la nacbaysiyo qofkaas uu go'aan qaatay halka waxba kama jiraan tan labaad meesha taalo waxa weeye qofkii inaan amnigiisa la sugin waxa weeye madaxweynihii dalka 37 qof ayaa ku dhimatay weerarkii gaalkacyo waxa ku dhintay waxa ku dhaawacmay 100 iyo xoogaa kamu tacsiin waa madaxweynihii dalka laakiin markii Kenya la duqeeyay uu carar haddii qof la dilo waa u sujuudaya Itoobiyana marka qofkii Soomaaliga daawanayay dan ma ka yeelan kara dawladnimo Soomaaliyeed waa may dadkii hadda xal dhameeyay waxaad arkaysay gudoomiyihii gobolka Banaadir oo jeebka gacmaha la galay intuu fishaar soo qaatay ilma intay argagaxeen maskixiyan u xanuunsanayo oo la rabo inta la qaado in loo maciino lala murugoodo ayuu ku yiri wareeyo push wajiga maxaa u deegtay ayuu yiri kii kale ee niseestay gaaf oo ahana intuu qoslo ku annaga ma aragtay waa kuwaas ma aragtay waa in dil lahaayeen laakiin annaga idin dilimayn marka waxa weeye xogahaasi xoog ka badan waa haynaa barnaamijku uu sii socodona waa ka hal doona intaan xog hayo waxa weeye shacabku iyaga looga baahan yahay inay toosaan inay xaqiiqsadaan in dadka yihiin cadow waa tahay intaasaan kaga gudubno digniintii weerarkii liida ka hor uu bixiyay wariye Daahir Calasow waxa ay ugula sugan wariye Maxamed Maxamuud Daahir Carab iyo wariye Axmed Cabdi Xasan oo runtii Muqdisho wariyaasha sida weyn looga yaqaan kamid ah si weyn u yaqaano xaaladda magaalada Muqdisho Maxamuud Carab bal ka waran digniintii Daahir Calasow maalintii uu bartilmaam shaaciyay meeshii uu shaaciyay waa la weeraray hay'adaha amniga xogta haya dad baa la dilay 9 qof dhimatay oo shacab iyo askar isugu jira goobtii burburtay 8 saacadood al-shabaab deegaankii ay weerareen gacantii ku hayeen bal ka waran weeraradaas iyo hay'adaha ammaanka waad mahadsantahay Maxamed Bashiir ma aha markii ugu horreysay oo arko Daahir Calasow wax ka digaya oo wixii uu ka digayna haddana ay dhacayaan laakiin middan daahir wuxuu ku dhuftay afka in daahir wuxuu leeyahay maalin hiblaayo dad hiblaayo waxba dhici doona meel hiblaayo wax ka dhici doonaan laakiin digniintan way ka dugneed digniinihii hore wuxuu sheegay in meel hiblaayo baarki xal la weeraray ah Banaadir Beach in al-shabaab ay weerarayaan maalinta khamiistan ay weerarayaan arbacadii uu soo qoray arintii way dhacday marka waxa maanta dhageystay taliyaha nabad sugidda Soomaaliya General Gafow oo leh qaraxa waa la ogaa in meesha la weeraray waa la ogaa wargaafo kaliya ma ogeyn ummaddo dhan awgeed oo waa la sii sheegay taliye in meeshaas weerar uu ku soo socdo Daahir Calasow soo qoray warkii waa la sheegay laakiin sidoo qaraxa uu ku dhacay mar haddii la ogaaday qarax inuu dhacayo soo ma ahayn in la raadiyo guriyihii qaraxa lagu soo diyaariyay ama garaashkii lagu soo diyaariyay soo ma ahayn gaariga in la qabto ma waxa laga hortagay markii nimanka meesha ay soo weerareen oo ay qabsadeen oo 8 ay haysteen waa su'aal la weydiinayo marka fashil waxa jira xagga amniga waxa rabaa in marka aan soo qaato hadda ka hor waxa la wareystay orodyahankii Soomaaliyeed caanka Cabdi Bile hooyadiis waxa la yiri wiilkaaga orodkii adduunka dhan uu qaado orodyahan weyn buu noqday ka waran markuu yiraahdo ahaa markaas hooyadii hadalka inay soo gaabaysay waxay tiri Cabdi Bile hooyadiisa wiilkii ii soo qaban jiray markuu iga baxsado iga ordo ayaa jooga marka al-shabaabka jooga jilib iyo jubada hoose dhulka al-shabaabka ay haystaan jooga amniyaadka madaxda ka ay amiirada ah waxa jooga kuwa ka dheereeyo ka orod badan oo ku jira dawladda Soomaaliya واتهاي أحمد عبد حسن أنسيو أحمد سيدي ساعدود كدب مركي لسوق قبل وركي ورك على الشباب يكون قبضين بنادر بيج وحبت اللي ذا كويا بالكورن هي لها أمانك وافش لنا ده وركي سيد الرب مردعين بالحقها هي سيد فعلا يكون كل دقائقين قدوميه قبل كبنادر كحجين كيسة إن أحمد ديرية iyo taliyaha nabad sugidii taliyihii booliska gobolka Banaadir waa ma santahay Maxamed Bashiir horta weerarka markuu dhacay waxa uu socday 8 saacadood sida uu sheegtay dad badan halkaas lagu laayay nimanka argixisada waxay weerareen maqaayada Banaadir Beach ee xeebta Lido waxaan daawaday
gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha nabad sugidda gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo saraakiil amni oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen weerarkaas inay fashiliyeen laakiin waxaa muuqata in weerarkaasi uusan fashilmin horta marka horeeto Soomaalida waxa caadi dhaqan u ah waxa horey gadaal kama fikirtay hore ay ka fikirtaa weerarkan waxaa muuqata in horey loo sii sheegay oo Daahir Cali Sow hore u soo sheegay laakiin lagama hortagin waxaana dhici doona weerar kaleeto oo al-shabaab ay dad badan ku xasuuqaan waxa ogaataa Gaafow inuu yahay nin oday ah oo waayeel ah odaygaasna kama soo bixi karo xilka loo idmaday gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaad ogaataa in dadka uu iska dharbaaxay oo arkaysay TV-da ka arkaysay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ee kalena waa la mid maxamed bashiirow weerarkaasi waxa uu ahaa weerar argagixiso laakiin dadkii mas'uuliyadda ku lahaa inay ka hortagaan ma aysan ka hortagin shaqada loo idmadana ma aysan qabsan ummadda waxa loo sheegayaa wax been ah ummadda waa la lugooynayaa anigu waxaan ku baaqi lahaa in dadkaasi booska ay baneeyaan dadku wax qabanaya loo baneeyo argagixisada awood leesaga celiyo iyo in la garaaco ma ahana faa'iido kale oo ay leedahay ma lahan argagixisaduna hadday maalin kasta meel weerarayso dadka hortagi kara waa jiraan laakiin waxaa jira qandaraas guud sida uu Daahir hore u sheegay oo ah qandaraaskaas in argagixisada dadka ay nacsiiso diinta islaamka nimankaana dadka ay nacsiiyaan calanka Soomaaliyeed waa tahay daawadayaal sidaad maqlayseen waxa laga dhawaajiyay in habacsanaan dhinaca ammaanka ay jirto waxa xusid mudan in isbeddello badan lagu sameeyay saraakiisha hay'adaha ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa fashil amni hore xilkii looga qaaday Bashir Goob oo ahaa taliyihii nabad sugidda Soomaaliya waxa ku xigay Sambalolshe oo ahaa taliyihii nabad sugidda kaasoo weerar badan dad lagu xasuuqay Muqdisho ka fuliyay waxa kaloo ku xigay Cabdiraxmaan Tuur Yare oo runtii dad badan ay yaqaanaan xilkiina laga qaaday fashil amni oo isdaba jooga oo soo food saaray hadda waxa xilkii haya Gaafow tusaale markii la soo qaato Gaafow saraakiishaasi hay'adaha ammaanka loo dhibay gaar ahaan sirdoonka waa ka waaya aragsan yahay waana ka qabiirsan yahay marka dhinaca ciidanka loo eego General Gaafow runtii dawladihii dalka soo maray gaar ahaan dawladda militariga dhinaca sirdoonka ka soo shaqeeyay aqoontaas uu leeyahay waa waaye arag runtii markii xilka loo dhibay la oranayay wax badan buu ka qaban doonaa dhinaca ammaanka laakiin da'da ka daba timid duqana laaluushku bartay intii migrationka uu hayay dhacdac fara badan kulli hadda arrintan qayb bay ka tahay laakiin waxa xusid mudan oo fashilka amni xoogiisa leh wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cabdikariim markay qarax dhaceen waxaan la yiri xilka iskaga deg Cabdikariim baa baxay wasiiro badan baa ammaanka fashil ninkan amniga shaqul kuma lahan laakiin madaxweynaha waxaan rabaa aan ka raxgal Maxamed Bashiir ninkan Cabdirasaaq iyo Cabdikariim way kala duwan yihiin Cabdikariim wuxuu ahaa ururka damul jadiid saasa xilka markii hore loogu dhiibay markii fashil badan yimid oo beesha caalamka ay qeelayso la yiri meesha urura qabsadeen Cabdikariim waxa la yiri iscazil waa lagu qancin waay laakiin Cabdirasaaq wuxuu kaga duwan yahay Cabdirasaaq madaxweynaha adeer u ah aniga maanta Daahir Cali Sow madaxweyne ah hadduu wasiir ii dhiibo maanta dhanna ay sheegaan hoosh ka soo bixi weyso waa anigi ama wiil adeer ugu aadan yahay wuxuu dhiibo maanta dhan aan leeyahay war adeer maanta hoosh waa soo qabtay xilka igama qaadi karo iscazil lama dhigi karo madaxweynaha waxa ayb ku naqanayso in wiilkii adeerka u ahaa fiiri Soomaalidu wax badan ka waxay rabaa in uu sheego fiiri Cabdirasaaq حسن شيخ والالكيس او كهوية حسن شيخ والالكيس كهوية وحسن سوكري عبد الرزاق ابيس ولا لا يهين اسكو ابيين marka uu jooga عبد الرزاق adeerkiis Roomaad uu jooga حسن شيخ ay isku hooyo yihiin waa nin ganacsado weyn ah حسن marka ninkaas uu ixtiraam عبد الرزاق wax ixtiraam uma hayo marka hadii xulka ka qaado wuxuu ka baqay in walaalkiis kooyada ahaa oo soo koriyo soo gacan qabtay inuu ka xumaado marka hooshii qaranka dhan waxa madaxweynaha u baabi'inaya in walaalkiis oo isku hooyo yihiin oo soo koriyo inuu qancinta qoys hadii hadda Cabdirasaaq xilkan uu sii hayo runtii qasaaraha inta uu ka badan karaa weerar xoog leh waa ay sii dhici karaan ما أسرع أرت وحلو كله كله عرنتان تذكر اسمه ديان قف كل لوش قادنا تصالح يروح بحين كل شيء ظاهر دتك وحاق رواين أرنت جرت الله فيريو شباب runtii hadda tirada ka bateen isqarxiyaasha ama ismiidaamiyaasha al-shabaab runtii hadda koowna ma ahan laakiin tuunka xoog galay waxa keen waxay tahay hadda raggan meelaha galay lama yaqaano ciidamada wuxuu markay deegaanada ay joogeen wala yaqaanahay laakiin su'aasha xusida mudan waxay tahay
saalax badbaado oo xildhibaan qaran ahaa baarlamaanka ka hadli jiray shirarka baarlamaanka warbaahinta shirar jira u qaban jiray maqal iyo muuqaal deegaanada shabaabka taagnaa oo dadka dhahaya dagaalka hal galo ciidamada shisheeye la dagaalamo dawladda la dagaalamo oo xataa wajiga aan xiran jirin in inta ka soo baxay deegaanadii al-shabaab muqdisho uu soo galo guri ama hotel uu dago baabuur magaalada uu ku dhax qaato baabuur weyn oo qarax uu ka buuxa soo wato airportkii oo afartiisa jiha ciidamadii sirdoonka iyo hay'adaha ammaanka ay ku hareeraysan yihiin ciidamada ajnabiga ah in saalax badbaado oo la yaqaan wajiga aan u xirnayn uu yimaado khalaas fashilka ninka aan cunuga aan la aqoon oo liida galay see loo aqoona saalax badbaado li qadil qabow mid kale hadda gaafo wuxuu ku leeyahay waa ogeyn baabuurka hadda ogeyn muxuu qabow ما أرين كلا أرين تبغى عرو وافشلنا الميرو حالي عم بولدي رصاعنا ومركو هرنا ها كوبا قبلها رجعوا جيجي أي أنت أفيان لقديك أي واحد كله يهين وحا أرتا إلى ما عاد يسقر عنا فشلنا ماشي لو قلنا ما إلا حلو وبرجلس قراء عيا فشل سيدي ساعة ده وحا حسد مدن وعلى يروح سدحنا أبلا سدحنا لو متسقر عيا قاري وذول غبطي سيد الله شيء أنا ما أمسني لوانين سيدي ساعة inay dagaalanto intaas oo ciidan hadana goobtii ay ku agtaalo taliskiina basugida Soomaaliya habar qadiijo waa arin u baahan baariska caalamiga horta Cabdirasaaq arintiis Cabdirasaaq waxay ka hadal ma laha qof laga hadlana ma dhama wasiirka amniga waa qof iska shakhsi aniga aan dhigi karo shakhsiyadiisa aad ay u lidataa waxa qoona ma laha khibrad ma laha way aragnimo la sheegana ma laha waxaan ugu baaqaa madaxweyne xasan sheekh horta muxuu ka xanaaqa Cabdirasaaq markii la yiraahdo laangaaba tahay muxuu ka xanaaqa wariyo ku xiray mesajadiisa la hayaa telefoonka mesajadii telefoonka waa macna fiiri aniga maanta oo dhan adiga laangaaba tahay aniga kama xanaaqay maxaa iga gal aniga أنا قلت صومالي معي قف صومالي معي وأنا شرف كله أنا صومالي لكن كان ما أمسون عقد قبيلة كجرت كان وحكما لانجاب هوية تمي كحنا لانجاب حوالله تمرك لي لو كحنا قيا إيه حوالي وصوحبك إيه عبد الله سلام وجود المغرب في حوالي لفت كذا شو لف عن لكن شخصيتي سوحبك إنه وقف اللي يجي جري مرك لانجاب تمرك لي لو كحنا قيا إيه وحرر إلهن إساسه والله ما قال أنا بوليس ما لكن لانجاب مركل لانجاب هويته وأنا ما أنت تقول لانجاب هويته هو كوك عصا لانجاب هويته لكن أسمع كحنا قايم مركل لانجاب حوالله تاي مركل قف حنا قايم دائرة إنه وقف حسكوك كل عقدها كوجت مركل قف الله الله ما أنا وحنا الله يا مدحوينه وحنا الله مدحوينه وقت يرى كود مدحوينه أسباب وبحثا أنت نير وأنت تكبحث عبد الرزاق ماشي كسيقة وحرا مركل الله الله إن جنرال جافو وأنا قبيرة وأنا في عن وأنا كرتي أقول له لكن جنرال جافو حن قلت لنا يا إن صدق مسك ضعف جنرال جافو ولا لوش كلا شيء إنا برت جوجي هول في أنا أمد الصومال أقبل نساء قبلها يرير جنرال إسكت ضعف هول في أنا قبل نساء ده نواتها قبلها يرير إسكت بعدين هول في أنا أمد الصومال أقبل نساء وحن آمن سنة إن نبض سجود أكو جول سنيس ألعبت الإسكيرة أو ألعبت جوجي أنت سان جنرال معناها واحد ألعبت على قمرقة كل حمر قمرقة أنا ألعبت أنا يا جنرال ألعبت ولا سوقي عشان صومالي واستقانا ألعبت معناها جنرال هذا الكوين وعدادا وحلا قريبا مرة معناها وحاول جافي وحلا واستا صومالي اللي هي شغل الله يحس روحك موجة أقونتي ولا هبين كانوا وقيلة يا ألعبت أبيا خيلات هذا ما غير شيء قبلها يريا قبلها اسكت حنت ونوعس حنت ونوعس أنا وحن كل شيء أنا وحن شيء ما لكن أنا وحن كل شيء حنت مقالة كوجرت إن معناها قبلها يريا الوكيل أدور راح يستجافوا أدور راح يستو بس أنا قدرت كيانا ضدك شعب كيانا العقوة هي ستهنتيها اسكر راح يسو حلو سكدك اسكدك مكو ديدن قفك بلدو يلان كرا قمر وعبس تحملها قاد وعوني كرتا ما أنت قلن قبل يريا استعمال لك حلك النوب بني ومض بني هذيك لا اسكر فوق جاهر وحا بلا شرف أنا ولي بحشمو هنا سا وأنا مسؤول تبردي ولا ده وحلا شيء أو كله إن هذا جافو جنرال أما جنرال أنا بسوي ده هيستو إن دت أما ورد دجال أوجيه النقدان أما دد دنا قبيل كله النقدان إنه جاب إسكو حريرية أنا بسوي ده سمعنا تصال وكله ده حكوا فلان مدحي قبل كبنادر سردونكا تليه أنا بسوي ده سوماليا مدحي قبل هذا كل وقفوا يدكيس بركة دد بدن باش شاوية هاي تفتح شاوية أنت إنجليز كيمت اللي جاء لي إنجليز ك ولا يري كريمنال هاي قصيم من الشرع حمر تجي مركو توري رجوا حبس يقولوا كجري إسجاب جري فعنا وانا سمي جري يجري وقت تنسول قبلها هنا اللي بعتيدت كنا أفضبطه ونجردله
hadda markuu gaafo meesha qabsaday habeen walba dadku jirdilaya habeen walba dadku afduubanaya hadda maalin hore godku jiic dadu geeyay shan qof oo hotel jasiira aagis deganeed oo cilmbaars ku sameynaysa dabagal ku sameynaysa nisa waxay tahay sirdoonka Soomaaliya ayuu Cabdifataax Shaawi afduubtay marka waxa weey argagixiso hadaan maqashaan waxa weey waa argagixiso sharciyeysan iyo argagixiso aan sharciyeysan al-shabaab argagixiso aan sharciyeysnayn dumujiidna waa argagixiso sharciyeysan tan sharciyeysan kugu daran marka argagixisada iyo wixii la shaqeeyo daayir Cabdifataax Shaawi inuu nin fiican u ahaa jiray انت نقف عمر جوجني صوت مركو اذا خير حبسي قدك جلع واحد اوغي كره هله ما اوغي شكوين بدل لكن ما كل شيء والامر هي لكن تعدك حمد القيميه xoga Cabdifataax waa idin fiican laakiin xoga aqli ahaan waxa wali waa iska yar laakiin mashruuc galaysa waxa rabaa daahir inaan ku sheego Cabdifataax ana waxa la badan oo aan ogahay oo aan arkay oo ma qani qof igama sheekeynayo oo hadda aan rabin inaan ka sheekeeyo jiri qofku waxa leeyahay haduu qofka waxa waa ii sheeg waa loo baaqa inuu saxo Cabdifataax niyo nin fiican ahayd hadda aniga inta joogay dhowr mar Cabdifataax wada hadal intaan gaafo meesha loo dhiibin laakiin ninkii gaafo markii loo dhiibay meesha wuxuu dib u soo bilaabay in dadkii uu dhibaateeyay tacadiyo uu geysto waxa rabaa in Cabdifataax aan la hadlo nin Cabdifataax saaxiibaan nahay nin dhalinyaro ah tahay nin mustaqbal fiican leh tahay oday halgamaa ah Allah u naxariistay ku dhaafay inta adeerkii dhalay Cabdifataax waxaan ku leeyahay dib u soo noqo sax saxada ii sheeg dib ugu soo noqo intaan ka leeyahay qofka bal leeyahay waxa ka leeyahay Ibrahim Shaawi dhalay wiilka gaafo hadda maanta baaqi ugu dambeeyay ku jeedinayna talay anagu cidna ogolin ilaahay idinkiis ii sheeg meel fiican ka soo baxay nin dhalinyaro tahay meel fiican ka soo baxay laakiin waxaan ku leenahay niyow waa qaldan tahay wadada hadda ku socoto wada sax maaha sax rag saaxiibada ayaan nahay waa isla qana adeerkay gaafo wana sajoogo inaan tabaxday gabdhaas la habeenku afduubato guri ku soo hay saddex habeen dadka inta afduubato madax furash ka qaato ma shaqeynaysa anaga waa ku ixtiraamayna magaca Ibrahim Shaawi ixtiraamayna inaan ka aamusno waa jecelnahay laakiin waa hadii hadda kor daahir hadda qof ma jeclaana daahir hadda kor waxa rabaa inaan kaaga sheekeeyo nin taliya wuxuu sameeyay mataqaana ragan iska dhalinyarada taliyaasha ah waa iska dhibaato socota moogtahay nin dhalinyaro taliya hadda kor wuxuu sameeyay anoo jilcu ku xiran waxa dhacday ulama jeedo ninkan ka hadlayno saaxiibkay ulama jeedo laakiin asaas iska soo bixi doono Cabdifataax dacadiyo badan oo geysto wajirtaa nin la soo xiray wiil la soo xiray wiilka wiil buuran oo xoog leh waxa hani Axmed Cabdi Xasan meesha ku xirnay laba qolaa ku kala jirnay ninkii buurna waxa loo geeyay Axmed Cabdi Xasan loo geeyay Axmed Cabdi Xasan markii loo geeyay qolku ku xirnaa waxa isla inuu Axmed Cabdi Xasan ninkan ku fadhiistaa waa in xoogan waxa laga soo qabto soos بس مركز نكان هذا عن كشة كنا نكان هذا عن كشة كنا وحد يدنا مقع عشان شيء حوجات بدي حرنا مركز حوجات دلك اللي قد يقيس مجرى أصحان وهبينك ويقيسوا بحجر بنانك رجلنا بتسجد دي ماشي كشة كسنة في سجرة مركز أنا شيء دي مقع عيسى قفكم مرة دو وكوسة ميادو عدبن لقوم الدكتور لكن تعدي نكاس وسمى مركب ربعنا رياضة معناها تلاكيش نين إيش نك ولا سبحي برانك لو سبحي ماشي على كيري ركبنا ماشي فريق وسراكيله oo qaar badan barka dambe ay shiino saaxiibo aan naqano ilaahu hadan been sheegay waxa kamid ah ilaahu yaan been sheeginay waxa kamid ah xiro waa kamid ah rag meesha fadhiyo xiro Cabdi Dheere rag badan ay joogo ilkaas raga joogo meesha ninkii markii la soo bixiyay meesha la soo fadhiisay waxa la yiri wariya yaa tahay ma waxa la yiri wara maxay al-shabaab ma adiga wallahi loo dharbaxsha lagu sankaas yiri ha al-shabaab laakiin aniga wax badan ma sameeyay hay ma sameeyay farmashiyo inta qori ka soo qaaday jirna hubka in waxa weerarnay degmay Blaayo weerarnay degmay Blaayo aan weerarno yiri Muqdisho laba mar bis qoriga qaatay laba xabada ku soo ridin waan la soo bursaday waxa la yiri wariya yaa tahay adiga aniga digli mrif laayno yaa ka tahay raxweyn ay la fuushay erbeedhabood ah yiri hooyada was adoor raxweyn ah bab ma degmay Blaayo weerar kara leeyahay adoor raxweyn ah ma degmay Blaayo weerar kara marka fiiri qadiyadii qofkan waa darajadu haysto sargaalnimadu haysto waa sargaalnimo Soomaali ah ragga marka dhalinyarada hadda niso ku jira ama military ku jira saasay u shaqeeyaan wariyaa ma adigoo raxweyn ah ayaa dhul habir gidir weerar kara ma adigoo raxweyn ah ayaa degmo marusada waayay hadaba ninkaas oo ka sheekeynay Maxamed Carbo qarnaya waxa weey ninkaas wuxuu wari qoriga soo qaad jirnay oo anaga dayniilaan weerar jirnay waana ka soo laabay ninka garaacayna waa Cabdifataax Shaawi habaq layso nabadgelyo waa dhamaatay barnaamijka